maanta gurmadkeenu waxa weeye masjidkaas in dadka muxsiniinta ah oo ihsaanka badan oo khayrka jecel aan baahidiisa u soo bandhigno qof walbo wixii heli kartid awooddaada ku soo darso masaajidkan maadaama intaasi ay wax ku tarayso kiisha mitaa wax ku tarahayo hal falis wax ku tarahayo hal doolar wax ku tarahayo masaajidka qabyada ah ee la yiraahdo magaciisa Masjidul Quba taariikhduna waxay ku beegan tahay 20ka bisha koowaad ee sanadka islaamka ee Muharram taariikhda milaadigana waafaqsan 15ka bisha Juulaay 2025 waxaan u nimid masaajidkan inaan ka qayb qaadano dhismihiisa iyo dhameystirkiisa waxaan rabnaa marka inaan muslimiinta kuwa jooga iyo kuwa maqanba aan u soo jeedino baaqaasoo ah masaajidkan dhismihiisa in laga qayb qaato ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuuna leeyahay inama ya'muru masaajidallahi man aamana billahi wal yawmil aakhir waxa kaliya oo camira masaajida ilaahay dadka sifadaas iimaanka leh oo ilaahay iyo yawmil aakhirka rumeeyay in la camira masaajidkii waxa koow ka ah in la dhiso masaajidkana waa qabyo dhagaxiisa waa dhamaad meesha ugu dambeeyay maanta kool darih ugu dambeeyay ayaa hadda uu marahaya deed waa ka dhiman yahay dad waa ka dhiman yahay shamiita waa ka dhiman tahay albaabo iyo darashado waa ka dhiman yihiin 4 albaab iyo 10 darashadood baa darashadaha lagu sheegay shamiitadiisa waxay ku qiyaaseen dadkii dhisahayay ilaa 250 markii la soo yareeyo kiish oo shamiita ah albaabadiisa laamiyarigiisa waxa lagu qiyaasay ilaa 200 oo xabo laamiyari ah isteeliga asna 200 baa la yiri muraalaha asaga waxa la yiri 104 xabo saasa lagu qiyaasay waxay noqon doontaa hadii Ilaahay ba xaqadeeda og marka muslimiinta waxaan ugu baaqaynaa masaajidkan camiridiisa iyo dhismihiisa inay ka soo qayb qaataan qofkii wax Ilaahay siiyay sida nabigeenu kaleey salaatu wasalaam uu sheegay qofka mu'minka ah waxa haleelahaya waxa kamid ah oo amalkiisa iyo xasanaadkiisa ah masaajid uu dhiso qofku inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi si loo soo waday oo cilman allamahu wa nasharahu wa waladan salihan tarakahu wa mishafan warathahu wa masjidan banahu bu nabigu yiri kaleey salaatu wasalaam oo kama qaala sallallahu alayhi wasallam marka qofka waxa haleelahaya oo uu baxsanahayo buu kamid yahay haduu rabo ha yaraado wax yar haduu rabo noqdo oo sida xadiiska nabiga ku sheegay kaleey salaatu wasalaam oo saxiixayn ku yaala wuxuu ahaa xadiiskaasi man bana masjidan lillahi qofkii masjid ilaahay dartiisa u dhisa masjidkaas oo ka mafxasi qadaatin dabada buulkeeda oo kala ah dabad buulkeeda marka masjid ma noqon karo oo hadda masjid qof meel ku tukada ugu yar laakiin waxa yaani waa lagu yaraanta wax yar baa lagu xeel dheeraanaya oo yaraanta wax ay keenaysaa la fiirin la faa'iideynaya wuxuu yiri nabiga kaleey salaatu wasalaam bana Allahu lahu baytan fil janna ilaahay jannadu guri u dhisa marka maadaama intaasi ay wax ku tarayso kiisha mitaa wax ku tarahayo hal falis wax ku tarahayo hal doolar wax ku tarahayo doonto laga warqabo xilli akhir samanaha lagu jira xil culus baa lagu jira waxa la arkay hadda waalid intay ka dhinteen dad ka dhinteen ay hal xaba u bixin diideen oo ay yiraahdeen markay noolaayeen maxay ula bixin waayeen marka muslimiinta kulligood waxaan ugu naseexaynaynaa ku boorinaynaa nafteena iyo naftoodaba masjidkaas inay ka soo qayb qaataan oo ay wax ka dhisaan oo wax ka dhameeyaan maanta gurmadkeenu waxa weeye masjidkaas in dadka muxsiniinta ah oo ihsaanka badan oo khayrka jecel aan baahidiisa u soo bandhigno si ay Ilaahay agtiisa wax u geystaan intaas ayaa maqsuudkeenu ah walaalayaal waxaad ogsoontihiin qofka maalkiisu waa wixii uu hormarsado maaluka ma qadamto iyo nabiga kaleey salaatu wasalaam maalkaagu waa midka hormarsatid midka khasnadaha ku jira adigu malihid midka dukaamada yaala malihid maalka adiga aad leedahay waa wixii aad Ilaahay wajigiisa geysatay
meel wax lagu bixiyo meesha u khayrka badnayd waa meesha saaka aan joogno iyo meelaha la midka waliba masjidku kuwa waxaa jira meel aan u baahnayn laga dhiso ama masaajidda korkood laga dhiso masjidkan wuxuu u baahan yahay wuxuu ka socdaa oo laga dhisay xaafad u baahan oo aan masaajid lahayn oo baahideedu ay taagan tahay waxaana wada nin jaliil ah oo aad iyo aad mashhuur ka ah magaalada Gaalkacyo aan joogno ina Sheekh Cabdi Fanax oo aan rajaynayo waxa weeye ina wada taqaanaan amaanadiisa iyo diyaanadiisa iyo wixii ay ugu soo dirsataan sida ay rabtaan inuu ingugu meesha ay la rabtaan ingugu dhigayo marka walaalayaal ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay lan tanaalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wanaag ma gaaraysaan ilaa aad bixisaan wax aad jeceshihiin maalka aad jeceshahay oo qofku uu jecel yahay waxa la rabaa inuu ilaahay darti u bixiyo marka waxaan leenahay dadka muxsiniinta walaalayaal ku soo dhawaada bangigan ilaahay wax dhigta aakhira wax ula baxa waxa weey adduunyadan waxa loo baxsanayaa wixii qofku uu la baxay oo ilaahay agtiisa uu geystay waa kayd aakhira ku yaala waxa weeye meeshaas inta lagu cibaadaysanayo beedkaas ilaahay oo quraan lagu aqrinayo salaad lagu tukanayo ajarkii lagu qabto barbaad leedahay dadka muxsiniinta ah wax yar iyo wax badan waxyaalaha galaya Sheekh Cabdi Shakuur baa sheegay shamiita haday tahay laamiyada haday tahay iyo kulli qof waliba wuxuu qaadan karo shan shamiita shan kiish laba kiish shamiita qofkii sheegay ku darsanaya waa wax weyn ilaahay agtiisa wax weyn bay ka noqonayaan marka ku soo dhawaada insha Allah ta'ala sheekhana ugu kaalmeeya adinkuna maaragtay ilaahay agtiisa wax geysto oo aakhiro aa u baxsataan aad iyo aad baan meel kasta aad joogtaan ingaga codsanaynaa inaa codsigeenaas aad aqbashaan masaajid waxa weeye hadda meeshan laga dhisayo oo meel hadda masaajid u baahan ah oo masaajidkaas oo dhagaxiisi dhamaaday hadda oo jeedan mixraabka la shubahayaa insha Allah si cuma u sheegeenba in laga qayb qaato dhismadiisa qof walba wuxuu la baxaa iska leh isaga kayd u tahay waxa hogaaminaya oo furaahaya oo arinta wada Abbas Sheekh Saciid Sheekh Cabdi Fanax oo nin taqaanaan ah oo culumada oo aamin ah insha Allah sida uu tala gasheen baa lagu shaqeynayaa lama yeerigi shamiitadii dugsigii quraanka masquulihii barkadii biyaha hawl dhan baa hartay marka waxa leenahay laga faa'iideysto dadka islaamka ahi waxaas masaajid iyo dugsiyaal iyo dad khayr la dhisay ilaahay ku guuleeyay waxa leenahay si cuma u sheeganba ajarkooda iyo kulli waa la og yahay insha Allah waxa leenahay qof walbo wixii heli kartid awoodaada ku soo darso masaajidkan si insha Allah adna loogu duceeyo ajarna u heshid masaajidkan ninka sheekha wada aan u kaalmayno insha Allah inta hore la baxdan Allah barakeeyo Allah barakeeyo Allah barakeeyo inta la bixi doontaan Ilaahay barakeeyo Ilaahay si sahlan noogu dhiso noogu fudeeyo meel lagu cibaadeysto Ilaahay loogu dhaw Allah nooga dhigo Ilaahay qabuurta hana siiyo dhamaan waxa la islaam meel joogaba insha Allah ugu baaqaynaa in ka soo qayb galaan Ilaahayna ha barakeeyo culimadeena noo soo jeedisay yani maaragtay baraarujintaas Ilaahay khayr ha siiyo intii hore oo masjidka soo qayb gasana Ilaahay ajarkooda Allah weyneeyo inta dambana insha Allah ta'ala Allah khayr siiya iyagana gacanta ana ku haya wixii ay soo dhibataan sidii ay soo dhibateen in masaajidka uu qabto ayaa in ka ballan qaadaya marka insha Allah ta'ala hadii Ilaahay yiraahdo halkaana noo ballana iyo wixii aad kula baxaysaan sadaqada ula baxaysaan